markaa waxay dhimatay gabadhaasi 2010 bishii 11 ayay geeriyootay waxaa laygu yeedhay iyadoo kooma ku jirta gabadhana macruuf baan hayna waan isgaranaynay gabadhii waan tagay halkii dhakhtarkii baan tagay Mustafa Juuri waan ugu tagay iyadoo kooma ku jirta 3 cisho 3 dhig markan koomadii ka soo baxdayna baroor bay qabsatay carruurteeda bay xusuusatay cidada kaga timid halkii baan anaguna yaa dadkii oo dhani ee ooyeeray maaragtay halkii bay ku geeriyootay markii halkii ku geeriyootay ayaan carruurtii aanu raadinay carruurtii markaanu raadinay meel habeenay baan raadinay carruurtii oo guri ku jirta oo kelidooda oon cid iyo ciiftoona yaa ani la joogin ayaan soo bixiyay oo waxba cunin oo 3 cisho halkii cid ugu tagin laakiin jaarku malaha wax yar u keeneen cunto yar u keeneen ayaa halkaan ka soo bixiyay markii ka soo kaxeeyay ilaa maanta sidii bay la joogeen cid soo sheegatay cid toona male ilaaha weyn ee waaxidka mooyaan tii dhibaato ka taagan tahay magaalada dawladda Yabanta ee dhibaato ka taagan tahay uu dagaal ka taagan yahay oo yaa aan u baqanay carruurtaba in la qadafo oo la qaato oo aniguna iska dhibaataysanahay soo khadamad baan hay marmar khadamada waaba la waayaa waan soo tuugsadaa waan iska dhibaataysanahay anigu 4 kala haysta iyagu waa 3 waxa awood uma haysto waxaan doonayaa dadka samafalkii inay carruurta yar yar ay meel iga sameeyaan oo u samafalaan yaa ilaahay hortood iyagoo ugu samafalaya ayaan jecelahay oo meel geeyaan ayaan jecelahay oo iga kaxeeyaan oo dhibaatada ay haysata iga dulqaadaan maanta مدحدنا مدرسة تكتا هذا بابا محد ما ينسى ويا بابا حاجة لنا مستقبل كذا إن هذه سنة ويدي سنة حاجة لنا مدرسة تكتا مستقبل كذا لنا مدرسة تكتا أقول عنك آخرية حاجة إن القرآن كهية ذي آخرية كنت تختار كي تجلس ما كنت تختار كي تجلس من سؤال